إغلان إن هذا العباس يسوده ومكسوق من كرواية عباس وإن هذا يسوده and habboon laanta bari baan waraystay maybe online maad ahayn iyo inaad nala socotay mooyaan habboon muuqaalna way soo duubtay waan raadiyey habboon waxay tidhi dee haddaan caawa dhinto cabbaas madani iyo kayse labadaa nin baa idilay ha la ogaado ما مغلسة إغلاني si fiican naadeer horta suxufiyeed waa ku salaamay marka koowaad waa kaa qaad waa kugu faanaa guuleyso qalito war ma hanaa moodin soo ku jira wali Soomaa ma imaad ku jirtaa naadeer si fiican waan ku maqlayaa waliba guuleyso inaad ar suxufiyeed dabcan roob kayse igu sheer gareey kayse adiyaa la kuuraya taas waa taa su'aashan aad weydiisay gabadha aanu ilmaadeerka nahay laakiin bolis ahaan oo kala aragti duwan nahay hadii la diido labada hello haye naadir haye ha soco marka inaad aray kulli adduunyaduna hadda kulli horumar badan baa la gaaray wax kasta reference iyo tixraac bay leeyihiin aniga Cabbaas Madani ahaan mabaadida ay hadda gabadhaas hadda u shaqeyso aad baan uga soo horjeedaa nin lagu bartay baan ahay cid kastoo u shaqeyso oo aanu dhalasho iyo deegaan wadaagnana rag iyo dumar anigu uma diirno xawaan dhaliilaa dhaliishaan aan dhaliile miidiyahan kala dagaalamo mooyaan wax intaas ii dheer absolutely ma jirto muuqaalkaygina maanta waa ku cadeeyay arrintan ay leedahay Cabbaas baa waxa weeye hadii waxa weeye aan dhinto lay haysta waxa fiican qofku inuu reference raaciyo hadda qoraalay soo dhigtay qoraal Cabbaas leeyahay oo waa ku dilaya absolutely ma jirto marka waxa jira anigu nin public ku jiraanahay nin cadow badan leeyahay siyaasad badan iyo dad badan ay aad uga soo horjeeda marka waa dareemi karaa meel kale waxaan laga soo hagayaa hadii aynan reference iyo cadeen ku habboon aanaysan keenin meeshaas waxa weeye inaad war xuno lagu waawey wax ka jira arrintaasi ma jirto marka su'aal kasta ay weydiisay insha Allah waa kaaga jawaabay arrintaas waxa kama jiraan okay inaad rood mahadsan tahay waxay tiri gabadhan horta weydiyo waxaan ku wuride say wuxu dhaceen waxa arrinta keenay waxay horta waxa kaliya la igu haysta sida aad u sheegtay waxay tiri aniga waxa la igu haysta maxaa Soomaaliland u tagtay markii horena ma joogin okay taa waa isla garanay su'aasha kala weydiyo waxaan ku wura wax xiriir waxay tiri kayse anigu ma baan aqoon hadda raadiyay markaan fariimaha helay ayaan kayse raadiyay kayse waaba soo helay bay tiri laakiin kayse waxa aqoon aan isku leenahay ma jirto Cabbaas waxay tiri waa isnaqaana dad darisaanu ahayn shakhsiyan waxaan ku wada xiriir ma idin ka dhaxeeyay yani dad wada hadlo wax ka tashada ma ahaydeen ma ay igu tiri marka adigana waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga iyo habboon wax xiriir ma idin ka dhaxeeyay yani oo de contactia inaad wax iska wareysataan inaad arrimaha ka wada hadashaan was good question su'aal aad u wanaagsan gabadhaas habboon ilaa laascaano daris baan ahayn dad soo kore baan nahay aniga familkeeda si fiican loo aqaan qoysaad wanaagsan bay ka soo jeedaa ilaa halgankii SSC ilaa khaatumo ma sha Allah dad personal si fiican isu garanaya oo wada hadli jiray ayaanu nahay dad hadda isku cusubnimanihin ilaa istiin maalintii ugu dambeysay ee Hargeysa lagu xiray ninkii geed gaanba u fuulin la sii daayo u dagaalamay anigu ahaa afnugal media si leefa looga daawanayay habeenkii la xiray ninkii telefonka step miski jaamacabaad waxa la Soomaalidu wax ku maamulada marxaati beenawaas marxaatigu soo fogeeyay miski jaamacabaad guriga joogto iyadan la xiriiray xaaladeeda situation-keeda intaas ba gabadh dhul bahanta oo gacan cadow gashay ayay agteeda ka ahayd markii mabaadidii aan ku dagaalamay ay ka soo horjeysatayna hadda sidii kuwii hore aan ula dhaqmi jiray ama u dhaleeli jiray baan u dhaleelay marka inta wax dhaafsan ma jirto message aan u diro waxa isu kay dambeysay May 10keedii baan filayaa true facts message inta ka dambeeyay u diray kaasna wuxuu ahaa inaan iyada u caqli celiyay oo la taliyay oo u hugo tusaaleeyay laakiin wax inta ka dambeeyay meel damaan iska maqlay ma jirto waa 3 bilood ka hor weeyay
marka message-kaaga u diraysana message jabaadna muu ahayn wuxuu ahaa message kaliya aniga ma aaminsani waxaasan aaminsanahay arrintaasna maadaama saa tahay ay soo raacama dee arrintaa ka baxbay ahayd soo maaha haddii uu hanjabaad ahaan lahaa banaankii keeni lahayd oo maanta qoraaladii soo bandhigtay intii dhiirigelinta iyo la talinta iyo hoga tusaaleynta way ka saartay intii ahayd hawshaada wado anigu muran iyo halkan ma furan intaan bay soo gelaysay marka waa wax qoran wey anytime loo baahan yahana waa wax dee la keeni karo iyaduna way haysaa anigu waan haya laakiin wax ah waan ku dilayaa iyo arrimahaas absolutely ma jirtaan halka ma jiraan qoraalada ay caddaynta ay sheegtay iyaduna ay soo gelisay aniga laftarkaygu waan hayaa halkan waxaa ku qoran Cabbaas waxaa ku qoran muuqaal ayaa laga duubay ayaan okay qoraalkan markaas ii sheegtay comment baad ka bixisaan u fahmay qoraalkaana bixiyay waxa la dhudhuumanaya maaha qoraalkaas still hadda uu ku jiraa anigaana bixiyay waana ku dilayaa kuma jirtee qoraalka si fiican u akhri aad u dhaadeyso maya waxa ku jira waxa weeye qoraalka muuqaal ayaa laga duubay ayaan u malaynayaa oo lagugu handaday inaad sidaa u hadasho ileen qofkan naqaanay ma tihide ceeb aan weligaa ka hadhi doonin noloshaadana khatar weyn ayaad gelisay absolutely waa ku dirayaayo absolutely kuma jirto marka noloshu noloshaada khatar weyn baad gelisay macnaha marka noloshu kaliya ma aha eeg fiiri noloshu hadalka Soomaaligu waa margi qofo meeshu ka wadaadi kara noloshu xabad iyo dil kaliya ma noloshaada hadaad hadda meel riska gelisid ama meel noloshaada wanaagsan caafimaadkaaga wanaagsan dawa khatar weyn wey meelaan dadnimadaada wanaagsan waa khatar weyn meelaan reerkaaga wanaagsan waa khatar weyn maanta waxa ugu qaalisan waa sumcad wey sumcadaadu haday dhimato noloshaada khatar weyn baad gelisay waxa sumcad la yaraar ma noqto marka siyaabo ma loo turjuman kara laakiin war Cabbaas Madani baa iisu hanjabay noqon mayso wax lagu mamarso inaad wax ka jiraan arrintaas ma jirto marka arrinta waxaad leedahay anigu waxay tiri ma jirtaa inay waxay tiri reerka Cabbaas reerkoodaan la xiriiray ma jirtaa in reerkiina la xiriiray oo lagu yiri arrinta 5 bilood ka hor ay inantaas la xiriiray shaashada garaaca oo sheergareey inay inantaas waxay tiri 5 bilood ka hor Cabbaas family-giisan la xiriiray waxaana arrintaas ay haysataa family-na soo kala dhex gala that means reerkii wuxuu ku soo gabagabeeyay bay tiri arrinta anaga Cabbaas waxba kama qaban karno ma jirtaa arrintaas soo gaadhay arrintaasi aniga family-kayga cid ka qaban karta absolutely ma jirto anigu mabaadi baan ka hadlaa xor baan u ahay nin odayaan ahayo freedom walaal baan wax ka qaban karin maama wax ka qaban karin waalid kale wax ka qaban karin marka cabashooyinku waa jirtaa oo horgaladu waa soo dacwoodaan waa calaalkooda iyo codadkooda iyada khaasatan iyada ahaan marnaba arrinteed fariinteed uu soo gaadhay marka dadka may ima soo gaadhin iyada wax fariinteed kuma soo gaadhno oo wax fariin xageeda iga soo gaadhay absolutely ma jirto waxaad arrintaas aad inta aad sheegtay mooyaan waxaad ka ogtahay oo sir iyo caad oo qarsoomina ma jiraan يعني سيدا يا سيركوغا يعني waxaan inta aad hadda noo sheegtay iyo qoraalka aan ahayn wax kale oo ku gaar ah oo aad inta u geysatay oo hanjabaada oo inta Ilaahay kugu og yahay ma jirto de waaba qoran tahay inaad argacay waaba soo bandhigi la haday jirtaan waa wax kasta oo qoray waa intaas uun aad bad Cabbaas u mahadsan tahay waa suxufiyad waxaan rabaa inaan kaaga tago suxufiyad baa tahay qof aad noogu weyn qaaliga tahay waxaan rajeynayaa dadka halka markay soo furaan lagu ixtiraamo suxufiyadda oo hadal deel qaaf leh aan absolutely goobta laga hor anagu warbaahin baanu madax ka nahay meelo kale dadku bulshaduna laga socdaan baa jirta meelahaas aan ugu xiyay anagu anistoran ka nahay ama aan madax ka nahay waxaan rabnaa ka dhaxay gaar ee looga hadlay inuu qofku meeshiisa la tago absolutely laakiin hal lagu ixtiraamo gabadheena qaaliga igala show suxufiyaddeena way hal lagu ixtiraamo insha Allah inaad aad baad u mahadsan tahay nala joog hanaga tagin dhowr qof oo kale aan rabaa inaan soo way haddii aadan mashquul ahayn dabcan may wada joogay insha Allah kayso salaamaya inaad kayso caaw dhan baafinta adduunka waxaan ku iri Mareykanka habartii diyaaradii lagu baafinaya adna lagu baafiyay habartu caaw waaba habartii caaw islan bay kala dhimatay aqoonsigii
habartii hadda naagi waxaan ku naagi kuwin iyo boqorada habartii aqoonsigii bay kala dhimatay war ma caawa inta aqoonsi kalama dhibana dhigayso ka bax warkaas inaadeero kayso dhigay hadda inaad live soo gasho wixii aad wixii barayfada oo gaara issue maxaa la yidhahdaa ii sheeg another issue waa in qolkaagii baad usoo kala xidhanaysaa waan gartay inaad eri war horta sheekayga horta soo dhawow waraysi caawa laga qaadayaa baan u malaynayaa waraysi weyn baa laga qaadayaa Cabbaas ba hadda halkan iga degay Cabbaas iyo laanta bariwle Cabbaas hadana waan u dirayaa suuqa soo celinaya Cabbaas oo soo qabsay inaad hadda daawanayso horta iga digtay mana ana gacantu iga dhacday kayso inaad gabadhii haboon laanta bari ayaa muuqaal soo duubtay adiga muuqaalkaaga waa daawaday Cabbaasna waa daawaday inantii أنا راديي مقال بيدوبتي waxay tiri aaw haddaan godgalo kayse haddaan aaw hargeyso ku godgalo bay tiri oo ku dhinto kayse iyo Cabbaas la raaco waan gartaa waxay tiri waliba muuqaalka waxaan duubay intaan noolahay baan duubayaa muuqaalkaas waan gartaa cadaymaan hayaabay tiri waraysigeedii waan dhageystay laakiin anaa soo qabtay waa waraysay su'aalaan weydiisay sidii wuxuu dhaceen intii arrintan socotay waxay tiri 5 bilood bay arrintan socotay waxay tiri inanka Cabbaas le reerkoodii baan ka dacweeyay waxa la Cabbaas shaqo kuma lihin Cabbaas igu shargareeyay kadib adigu hadalkii yaan kugu daaline gabadhaas waxay tiri kayse iyo Cabbaas ba cadaymahoodii waan hayaa gacantana waan ku hayaa waan gartaa waxaana liigu yiri halkii dadkii hore la mariyaa lagu marinayaa gabadhay diyaar garow haddii wax dhulka ka yaalaan waan gartaa arrintaas marka maxaad ka ogtahay kayso horta walaalay arrinkaas suuqa waa la isla yaacayay gabadhaasna suuqa waa soo dhigtay waxayna tahay haddii laydiyo dadkii la dhihi jiray shaydaan baa derderay dadkii leyn jiray labadan nina fangareeya waa nimankaas muddo hore hadda keliyana maahee mar bay dabaqoodhiyadoo dhan tiifiga soo istaagayaan lamada nina dilka fuliyaa waa Cabbaas iyo kayse iyada keliya maaha ma garata ama qashaa haya si fiican telefoon baa igooyay arrinka gabadhan suuqa keentayna waa arrin horta loo soo dhiibay haya sugya waa isug haboonay walaalo isug kayso hello haboonay inaad linkiga waan soo diri karaa miyaad daawanaysaa TikTok wax la ma haysataa bes hadaba linki ana ku soo diray mahadsantahay gabadha horta haba soo saarin ta meesha wada maya ma bala TikTok ma isticmaashay maya TikTok ma isticmaashay ana waxaan ku yiri TikTok raadi marka TikTok ma isticmaasho shaqana kuma leeyahay gabadhaasi waxay tiri haddii lay dilo kayse ay dilay iyo ninka la yiraahdo Cabbaas Madani horta haddaan cid dilayno ama cid nolosha dhaafeeno guryaha waxaanu dhex joognaa 24 saac Mahad Cambaashe Salbaanka hore bada saabkii magaalada ninkii hore maayarka magaalada waan istaafiyadooda naqaanaa macnaha dad gaar aad leyn lahaydin haddaa awoodda haddii aanu cid dilayno ama aanu cid nolosha dhaafeeno nimankaas aanu gelin ku dhaafin karana Cabbaas waa kan haye soomada garan gabadhan qoraal baan u qoray ahaa waxyaalahan SNM iyo Somaliland dabada hayso faraa ka qaad مليون أنا وقبر والله يسنم أرمانا مالمها نصو الشعب حتى السوشيال ميديا هذا تاجن تياترير كدراوشنا هتكون عن شرفين سلا صدق بهان تقولن باي بعصنا إياه يلو بهان تقول بعسنية مش تكبه dad kan aanu sheegaynay aanu dadkii hore meesha maray waa jirtay dhalinyar yar oo wariyaala iyo dhalinyar maalin walba caadeysin jirtay in calanka Soomaaliland gacanta ku soo xirato calanka Soomaaliland ku dibaadagtay magaalada Laascaanood iminkana iskaga fogaaday anagu ulamaanu jeedin dadkii hore la dilay ama dad ajashooda Laascaanood ugu jiray ulamaanu jeedin gabadhani waxay tiri caawa haddaan dhintay kayse Cabbaas la raaco horta qorshahan waa qorshayada loo soo dhibaaday caawa dhimataan annaga loo raaci maaye idoor iyo saaq baa loo raacay dadkana ku dhex nooshahay haye de waraysi ba ila meeshii haye luqada saxo idinka macnaha kayse
moogtahay wixii dee waan saxayaa horta guusho waan saxayaa maya dee waxaan rabaa mataqaanaa inaan sidee isu ilaa waraysi baan qaadayaa dad badan baa ina daawanaya anigana dee maaragtay inaad igu xushmaysid maaragtay oo yacni sidee inantaasina iigu xushmaysay cabbaasna iigu xushmeeyey adiga laftarkaaguna dee iigu xushmaysid haddii aan cidna inaadeer dee maaragtay inaad haddii gabadhaasi la dilo anaga nooma raacaa tidhi annaga gabadhaa haddii la dilo oo ay maanta naf baxdo wax annaga noqoseeya maaha nolomana raaco waayo ujeedku haddii annagu aanu hore nalo ku tuunsanaa ama aanu wax dilayno ee rag waaweyn oo la yaqaana aanu naqaanaa istaafyadooda xidhi nagala dhexeeyaa askartooda aanu naqaanaa kuwa naftooda waardiya albaabka u fadhiya aanu naqaanaa wax annaga gabadhayada dilkeeda aanu maanta aanu lacag ku bixinaynaa ama aan cid ugu diraynaana annagu rag ka waaweyn baanuna macnaha waxaad leedahay juhdi kalaan cid kale gelin lahayne annaga inantaas naga beri bay naga tahay dee gabadh yaroo calan meel la taagan juhdiga aanu gelinayna maalina cambaashe iyo barasaabka magaalada iyo maayarka magaalada maanu gelin maasajyada aad dirtay cabbaas maasajkiisa halkan aan ka akhriyey way ii soo dirtay waxay tiri kayse maasajye wuxuu ii soo diray labada waxay tiri waan hayaa marka laakiin kay ii soo dirtay waxa weeyaan waan akhriyey wuxuu yidhi meel commentiyan ka bixiyey cabbaas wuxuu yidhi anaa diray anaa qoraalka bixiyey waxaana weeyaan qoraalkana waan akhriyey adiga maasajkaad u dirtay ee inantaas aad kula wadaagtay su-aal kalaan rabaa inaan weydiiyo iyadana weydiiye cabbaasna weydiiyo waxaan ku yidhi kayse aqoon gaara ma isu leediin xidhiir ma idinka dhexeeyey hore wax magu wada tashan jirteen maya bay tiri kayse iminkaan raadiyey kayse wax xidhiir laakiin cabbaas waa isnaqaana bay tiri laakiin kayse aqoon nagama dhexaysay tiri waa runteed aniga gabadhaa horay maasajkaasaan ku war helay waxay tiri maasajyada markaa maasajyadii aad u dirtay waad ii sheegtay halkii waxay tiri iyaduna way sheegtay halkii dadkii hore mareen ayaan marayay adoo ula jeeda yacni sidaanu dadkaa ula hadlaynay bay faraha ka qaadin adna faraha ka qaad waa saad hadalka horta hadalkaas waa hadalka meel walba dhigtay xarun kasta geysay qof kastana u dhigtay horta iyada gabadh baa ka horreysay la dhihi jiray Fahiimo Yuusuf Quuje adiguna waad garanaysaa gabadh aad Somaliland ugu horeysay dad ciddii shuxigaana annaga ahaayeen fariimo fara badan iyo tala badan iyo canaan fara badan oo aanu siinay Somaliland maanta faraha uga qaaday uuna ugu ololeysaa maamulka Khaatume State of Soomaaliya ujeedkan ka waday dadka hore meesha mareen baadna maraysaa dhalinyartii iyada la mid ahayd calamaanta Somaliland la boodaysay maamulka Somaliland bartay mareen iyo macnaha saan uga sifaynay iyo saan qalbigooda uga tirtirnay baad maraysaa ujeedkayga naga hayd ma jirtaa sida waanada waxaad tiri hadda inantaa waanaad u dirtay waana badan baad fiimo u dirteen dad badan iyada dee mahanjabaad keliyaad u dirtay mise ma jirtaa si inaad ula hadashay tolnimo ku jirto ehelnimo ku jiro inanimo ku jirto ma ula hadashay mise mahanjabaadda unbaad u dhigtay dabeetana waad gabadhan waxaan ku idhi waxyaalahan ee aad wadwaddo iyo waxaan weynaad ka waantowdaa baan ku idhi anigu dee gabadhan haddaan dilayo ina cambaashaan waqti gelin lahaa waa ku fahmay cabbaas oo soo dhawo walaal cabbaas oo malaan gacantu iga ka dhacday markii mise aad telefoonka gooyay inaad ramaasan tahay kaysana waa salaamaya aad iyo aad inaad soo aad ramaasan tahay mid un baa raba inaan xoojiyo inaadanay aniga horta ma absolutely buqaalkan anigii kaysa maanta duumnay jawaab ma ahayn waxa uu ahaa isbariyeerid anagu kiisas badan baan gacanta ku haynaa laascaanood ka dhaca anigu waxaan ahay ninka ka hadla arrimaha dilalka qorshaysan laascaanood ka dhaca dadka la laayo sababaha lagu laayo kamana gabbado inaad kamana gabbado marka kiisas badan saasoo kale ku dhacay baan garanayaa qof itii laba qof intay isqabteen ismaan dhaafeen baayo kale itii dishoodho la yidhi hebel bay is af dhaafeen oo ninkii haddaba loo qabtay markii dambena adoofteendhi kitaabta ay noqotay labadii qoloba ay dhaarteenoo labadii qoloba ay ka dhaartay marka ujeedadan usoo galay waxa weeye qolyaha daminada argagixisadaas sameeya dadka laaya waxay sameeyaan mashiinadaas kale adeegsada marka in berri ka maalin markii falku dhaco kadib inaan laga daba tegine waxa xanuunka dawada iyo ka hortaga kay wacan
ka hortaga marka beri ka maalin intii qoliyahan anagu aan isu hayno ee dagaalku naga dhaxeeyo intay fal intay geystaan sawirkiina la qaato aanna ka hadli wayno de wixii ma maqlaysaa eglanay ha si fiican naadeer beri ka maalin anagii baana lagu shaabadan karaa de qadar wax kasoo dhici karaa moogta marka inaan isbari yeelo absolutely anigu maanta haddii la caayayo nala caayayo comment nalagu caayay muuqaal nalagu caayay ma kala jecel waaba ku raaxaysanaa baandhow sababtoo ah waxaan keenaya mabaadidaan ka hadlaynaa tan ka weyn middan kale ah cabaas teleefanadii baa saas ku dhaafay cabaas qolka iska xidh dad buu dakama ka soo galay dadkii jarma muuqaal baata soo tuba laga soo daba yimi kayse dad buu muuqaal ka soo tuba dib soo aha waxay aan ka garaana anagii baa bad madaxa noo geliyeen kula kayse ay dileedile cabaas iminka dad buu waxay dad ilaadeer horta hadalka sidaad rabto horta qofku hadduu kula dhigo si wariiniman kula hadlaya laakiin haddaan si istifaac wallahi ila hadal de waxa weeyaan xoogaa igu xushay hadda cabaas wuxuu yidhi haddaan naadeer wixii meesheedaan kaga hadlay laakiin waaye badaan kula hadlay horta dhigayso anigu haddii aan maanta iska aamusi lahaa cabaas gabadhan dar loo dilo cabaas oo muuqaal baa soo duubtay miya markaasaa lagaa soo daba hadlay youtube-ka hadda wax soo gelisay miya banduubay muuqaalkii baa lagaa soo daba hadlay waa iska fahmi karaa moogtahay cabaas oo saa ma ahayn ka saar maxaa u samaysay marka anigu absolutely marka inaan waxa rabaa inaan xoojiyo hadda waxaa la yidhi cabaas madani iyo kaysa dad laascaanood ku laaya eg laba arrimood isma waafajayso isma waafajin karo arrinta koowaad laascaanood baa aabahood lagu dilay iyagaa la socday marka la dilayay iyo waxbay laayaan waxa weye the different baa udhexaysa marka qof la leeyahay aabihii baa laascaanood lagu dilay haddana waxbuu laayaa waa qorshe aan markaas hirgelayn hadda ka hor anigu arrimo badan baan fashilay qaab intelligence aan u shaqeeyaa sirdoon badan baanu leenahay gudaha iyo meel walba noo jooga xoogahoodaanu haynaa dhagarahoodan aaminsannahay xogtoodan baahiyaa har iyo abeenba waxaan shaqadeeda markaan ka yimaado 35% waxaan geliyaa arrinta deegaanada Soomaaliya sanaaga caan baan geliyaa nin mabaadida lagu bartay baanahay qadiyadaasaan caan ku nahay wixii xunoo dhanna oo magaca reerka ceebanayana meel baan ugu soo wada jeesanaa wixii markaasi inaga dhibaato inoo keeni karana dadka ugu caddeena marka waa iska dee xagxagashaduna way iska jirtaa laakiin waxa wanaagsan wax kasta inay tixraac iyo reference la isu soo raaciyo iyo caddayn aniga waxaan rabaa inaan hadda idinka tago war anigu wixii mabaadida dhulbahanta ka soo horjeestan weliga gabadh ma ahaadee isku si waan la dagaalamana waa intaas ugu ma faham annagoon caayin aflagaadeyn qoys ahaan u caayin xabad ku dhufan waxa weeye si toosan ula dagaalama dagaalkayu waxa weeye waa mid af laakiin hadday noqoto mid ficil hadda ficil haddii cid naga qaadanaysaanu helinaba hadda meelo kale ku fuliyaan oran lahayn meelo kale ka fuliyaan oran lahayn marka halka waa waraysi weeye arrimo badan baanu kor uga baxaynaa maadaama qolkaana ku cusubanahay waa kugu ixtiraamayaa markaan afnuwaal iyo warbaahinteeda ka hadlayo sidan ka duwan baan u hadlaa laakiin hadda adigaan kugu ixtiraamaya inaad ilaahay ku barakeeyo tankina qool wax soo bartaatay waad fahmi kartaa wixii jira marka hadda kayse iyo dee haddii inantaasi waxa weeyaan inan dhulbahantaa weeyaan inkastoo aan weydiiyaan ku uri maxaa lagugu haysta waxay tidhi maamul baanan shaqo ku lahayn shaqaanan shaqo ku lahayn meel baanan ka shaqayn mushahar somaliland baanan qaadan ilaahay waa tu i cadaabay tidhi laakiin inamadaasi halkaa unba iga raaceen idinkuna waad sheegtay calaa kulli xaal waa isla afgarateen marka arrintaa heshiis iyo dhexdhexaad baa laga gelayaa inantiina dib baan u raadin doonaa macnaa ma fahanteen inaad horta mamaqlaysaa horta iglanay horta kiiskan gabadhu meesha keentay waa kiis qabiil la iskugu tegi karaan haddii maanta gabadhaa la dilana dee rag ku kala dhiman karo ma garad kiis dhayada maaha haddii lacalla maanta gabadhaas la dilo
nimanka dushooda laga dhiigeeda laga rabo waa annaga annaguna ma nihin dad dad u baahantaa ku fangareeya in la dilo lacagtooda meelo kale aan ku fangarayn lahay haddii aanu doonayna inaan qof u baahantaa dilanay dee ragga iyada ka fac waaweyn mushaharka qaatee gobolka soo lagu tuhmayaan ku fangarayn lahayn lacag lagu dilo ma garata ama rag kale ayaanu fangarayn lahayn waxaanu leenahay Cabbaas aabaha markii waa la dilay oo jimbaa dirdeegaa dilay adiguna waxbaa laysa horta meel wax wada gelaya maaha weligay life fanu soo fadhi jiray gabadhan life ma soo fadhiisan gabadhii la jiray fiima Yusuf Quuce weligeedna intee meel soo fadhiisay ma oran dii caawilay dowladda kiisi Cabbaas bay dilay saan waano ugu wadnay hadalna ugu wadnay wata maanta calankii buluuga ee calankii khaatimo waloolaysa xildhibaanada dalka Soomaaliya u tartamaysa iyadana bartaasoo kale aanu ka rabnaa inay gabadha iyadii noqoto taariikhdeeda aaminto calankeeda khaatimo aaminto ammaan inay naga hesho maahana dee xumaan iyo dil keedna kuwa ka shaqaynaya mani wixii hadal canaan aanu dhahana deen maadartima aanu dhahaynaa haddii aanu dilayno dee annagu naasirey lacag ku bixin mayno iyada ragga ka waaweyn oo gobolka Sool inay canjarafad iyo dhubaante xumaan u soo jiideen baan lacag ku bixin lahayn anoo gabadh naasleeyo in adeertaya oo dhiigayga deecaankayga lacag kuma bixinayno mana nihin dadka dhiibka islaamka lacag ku bixiya mana nihin dadka dhubaante gudihiisa iyagu lacag ku bixiya inay islaayaan saraakiisha Somaliland baan lacag ku bixin lahayn iyo madaxda Somaliland wasiirada imanaya hadaan dhiig islaam lacag ku bixinaynaba gabadhan waxaan leeyahay hadalka ka fiirso haddii aawa aad dhimataa annaga nama qusayso inaadeer bari baanu ka nahay iyadan soo duubnayna waanu iska beriyeelinay gabadha hadalkeediisan gabadhaas dhalinyarnimo qaadin baanu leenahay ama hasantahay inaadeer aad iyo aad inaadeer waan ku salaamaya sharafay inaadeer aad baad u mahadsantihiin waa mahadsantahay Cabbaasna waa digmada telefoon baa ka jira inaadeer waa mahadsantahay Kayso sidaad maaragtay aan ku soo raadin aad ku heshay waadna ku mahadsantahay sidaad waraysiga u bixisana waad ku mahadsantahay wixii dambena waa isku soo noqonaynaa inaadeer qaali thank you walaalkeen darwiish hawdow ay maqlaysaa iglanay ina baa hadlaya horta waa ku salaamaya kowdhe inaadeer waa ku salaamayso dhawo dhammaan shacabkana waa salaamayaa shaashada garaaca waa ku salaamay inaadeer horta shaashada garaaca haye horta Somaliland maamulka Somaliland waa argagixiso taa marka laga yimaado ikaadin dhageyso inaadeer horta waan hadlay inaadeer ma ismaqlaynaa horta dee hortaan ismaqallo dee fikrad horta inaadeer aan ismaqallo dee maya horta aniga kelmad eg inantan horta habboon laanta dhageyso arrin baa laga hadlayay dhageyso argagixiso dee arrinta habboon baan rabaa inaan ka hadlo arrinta habboon baan rabaa inaan ka hadlo laakiin waxa weeye sidaan warayska u qaadayo eeg anigu dad waa u dhaxay dad adigu wixii argagixisay wixii kale meel kale waad ku sheegi kartaa macna ma fahantay haye laakiin de waxa laga hadlaya hadda arrintan eeg anigu Somaliland ka inantan wixii dhacay baa laga hadlaya anigu Somaliland iyo Soomaaliya iyo waxba argagixisay waaya raalli ahow arrinta ma ka hadlaa arrinta waad ka hadli kartaa inaad laakiin de saad uga hadlaysid eeg meeshii waaya inaad arrintan ka hadlaya ka raalli ahow waaya eeg horta waxaad ogaataa meesha lagu ficiltamo maaha macna ma fahantay wax weeyaan anigu baan waraystay haddii aad adiga rabtid inaad meel wax ka sheegtid iyo haddaad rabtid inaad dad argaxiso waxaas iglanay waa kula fahmay arrinta waa kaa raali geliyey waxaad imka diiday okay horta inanta habboon laanta bari waxa loogu hanjabayo anigu qalad baan u arkaa sababtuna waxay tahay Somaliland haddii la doonayo qofka u shaqeeya in loo hajabo la dilo Cabbaas adeerkii ruma iyo adeeradii baa Somaliland u shaqeeya ha ka soo bilaabo okay waa mahadsantahay haye inaadeer mahadsanid haye habboon may maqlaysaa haye may arrinta habboon waraysigeedii waa daawatay habboon waa inan deegaanna ma matasho gabadh deegaan matashaana ma jirto inantaa habboon laanta bari
adiga waxaad leedahay wixii habboon loogu hanjo waa khalad weeyaan ayada cabaas وقلب هديها شباب دم بالله درنا والله وبالله أطلعه دبانتي كودي سك بلا مسا فرنت أنا دريا وأنا كسلام يا ناس هاي يا نادر ما تصدق